midnimo qaran kacdoonka dhalinta Soomaaliyeed. Join the movement. dekedaha dadka Soomaaliyeed askar shacabka Soomaaliyeed askar iyo dadka qaadan kara dadkeena haday qaadanayaan marna aqbalnayn dadka Soomaaliyeed qarna markii aan la jahwareeyo waxaan inaan nala xisaabtantaan laakiin idinku waa inaad waajibaadkiina ka soo baxdaan si aan xuquuqdeena waxaan rabaa inaad ogaataan meel walba oo aan tago dunida korkeeda iyo qof walba oo la kulmo waxay aaminsan yihiin dunidu iyo dadka Soomaaliyeed oo dalka jooga intooda badan inuu dalku u socdo meel sax laakiin ay door taagan yihiin caqabadahaas loogama gudbi karna haddaan isdhiibin sidaas daraadeed waa inaan la isdhiibin waa in dhibka loo adkaystaa waa in la isku dayaa inaan dadka naga dambeeya annagu aan nahay kuwa hormuud ku noqon lahaa gabar walba iyo wiil walba Soomaaliyeed waa inuu og yahay inaanay nolol wanaagsan kaliga wax kugu tarin inaanay sharaf yeelanayn haddii dalkaada iyo dadkaada sharaf lahayn in cidna aanay difaacin dalkaada haddaanad ugu difaacin dhaqankii ahaa in wax la dumiyo waa inaan ku bedelnaa dhaqanka wax la dhisaayo taariikhdu waxay naga qori doontaa maxaan dalkeena u dhisnay ummadda Soomaaliyeed waxay nagula xisaabtami doontaa maxaan dalkeena iyo dadkeena ka duwanay kuwiinan halkan jooga oo nolosha fiican haysta oo aqoonta annaga naga badan leh waxaa idin saaran mas-uuliyad ka weyn kuwa kale ummadda Soomaaliyeed waa sida geedka oo kale sidaan isugu xirannahay aan u kala maadin waa meesha xididada geedka uu ka yahay dhulkeeni hore waa meesha jirida geedka ay ka tahay shacabka Soomaaliyeed waa meesha laamaha geedka ay ka yihiin qurba joogta waa meesha miraha geedka ay ka yihiin horumarkii aan idin tilmaamayo oo aan rabo waddanku inuu tago mid aan laga calanina loo soo cararo mid shidaalkiisa ka munaafacaadsaday iyo beeraadkiisa iyo khayrihiisa mid dunidu ay isugu timaado mid leh cadaalad iyo nidaam dowladeed oo dhab ah haddii marka ay laamaha jirida geedka iyo xididadu iswaayaan ubax iyo miro ma bixinayaan haddii jiridu weydo xidido biyaha usoo qaada laamo kama baxayaan haddii xididadu jirid iyo laamo waayaana iyaguna keligood ubax iyo miro ma bixinayaan macnaheedu waxay tahay dadka Soomaaliyeed sidaas ay isugu xiran yihiin meel walba joogaan haddaba waa inaad dalkiina iyo dadkiina dhaqaale maskax iyo muruq gelistaan si idinka awood aad u yeelataan oo halkan magac iyo maamuus aad u yeelataan ubadkiinuna uu helo waddan ay nolol wanaagsan ku heli karaan soo annagu haddii aan Soomaali nahay meel walba aan joogno ma kala maarin fursaddaan leenahayna cid leh ma jirto gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaasha halkan jooga waxaan idin leeyahay taariikhdaa maalin joogi doonta maanta dalkeena sida aan u wadno ayaa waxay ka turjumi doontaa qarniyada soo socda maanta sida aad idinku u dhaqantaan ayay dowladnimada Soomaaliyeed u dhaqan doontaa haddii aad sii wadaan dhaqankii ahaa inaad daladihii xamar roobka ka da-ayay aada wadataan meeshaan taagnaanayna haddii laakiin aad tidhaahdaan 30 sano lasoo dhaafay ku dhawaad ayaan ugu filan waxaan isleeyahay rajo weyn baan leeyahay kuwa xamar iyo gobollada Soomaaliyeed jooga oo dhan waxay leeyihiin hadda waxaa muuqdaysiin 75% shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan waa dhalinyaro da'dooda ay ka yar tahay 30 sano dadkaas waxay u baahan yihiin kuweena mas-uulka ah inaan u samayno Soomaaliya ka duwan Soomaalida baahiyo marka waxaan leeyahay sidii heestii uu sameeyey aqwaankii qaaday Bashiir Cali Xuseen macnaheedu waxay tahay Soomaali haddii aan nahay midigay bidixda ma ka maarantaa madaxoo mijaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa ummaday midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabadaa maxaan ma ka maarantaa wadajir
أي أود وصارينا وحقبت باه ومرنا جالسين كرا وكلا قمنات وهو وعطين لفظر كده لمدى مستقبل الصوماليات فضلا اسكي لا روحي فرلي البوشري لا قبصد الصوماليات وصبع لي شغلي عن نسمه دل كيدين كان تكسكوري جلين وبعثين